السلام عليكم. عاديات بوض سلامتين دمان وولاش الحلم قبات وحاربان دي الشيء. tani waa fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad waxay ka mid tahay fanaaniinta lagu jecel yahay codkooda fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradda Yurub waxa ay maanta si degdeg ah ugu dhawaaqday inay guud ahaan isaga baxday fankii kadib markii ay sheegtay qof walba uu dhimanayo waxa ayna Xaliimo Gobaad si cad u sheegtay in xilligan wixii ka dambeeyo ay isaga hartay fanka inkastoo si rasmi aysan u shaacinin sababihii markaasi keenay hayeeshee waxa xusid mudan in fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad muddo saacado ka hor ah markaasi nikaaxeeda uu ka dhacay dalka Sweden isla markaana ay guursatay nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Samow fanaanada Xaliimo Gobaad oo heeso badan oo Soomaalida aad u jecel yihiin muuqaalkeedana aad u qurux badan yahay goobka ciyaar waalihna soo bandhigta waxa ay sheegtay in ay fankii isaga hartay guud ahaan ee macsalaameysay shacabka Soomaaliyeed ay ka dalbatay in ay u soo duceeyaan kadib qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Facebook ee Xaliimo Gobaad sida aad markaasi hadda arkaysaan daawadayaal Xaliimo Gobaad ayaa waxa markaasi qorsho ahaa in bishan labaad ee Febraayo ay timaado caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaana halkaan ay ku dhigto show kala kacsan hayeeshee ugu dambeyntii markii ay guursatay ay fanka isaga baxday Safaan Halac oo kamid ah fanaaniinta dhowr hees ay isla soo qaadeen dalka Sweden ay ku sugan yihiin ayaa si cad waxa ay markaas ugu hambaliyay guusha ay gaartay maadaama fanka ay isaga hartay waxa uu sheegay ama uu ka dalbaday in markaasi ay u soo duceeyaan asxaabta kale ee fanka wali ku jira si iyaga dhankooda isaga baxaan dad badan ayaa aad u taageeray marka aad akhriso qaybta commentiga kuna taageeray maadaama fanka ay isaga baxday una duceeyay in hawlo kale ay qabsato halka qaarkood ay ku dhaliilayeen wana sheegayeen markii uu guursatay ay fanka sidaasi isaga baxday dad badan ayaa isweydiinaya waxa xilligan ku soo beegay fanaanadii caanka ahayd ee fanka macsalaamayso ee Xaliimo Gobaad sababta ku kalifi karto inkastoo hadda ay tahay qof nikaaxeeda uu dhalay ama uu dhacay saacado ka hor haddana ah mid ku jirta 7 ama bishii malabka nolosha ay doonaysana inay ku raaxaysato dadka ayaa sidoo kale isweydiinaya fanaanadan maadaama ay jiraan fanaaniin kale oo caan ah oo fanka ka baxay haddana mar kale dib ugu soo laabtay inay dib ugu soo laaban karto hal qaarkood ay sheegayaan in Xaliimo Gobaad ay tahay qof go'aan leh fankana aysan ku soo laaban doonin heesaha lagu xasuusto caanka ay ku tahay fanaanada waxaa kamid ah manihi qof caataha ku mana cataabina heestaas oo u muuqata inay tahay mid markaasi shaqsi ama markaasi lagu dhaga hadlayo maadaama jacayl uu kala dhaxeeyay iyo heeso kale oo caan ah oo abwaaniin markaasi caanka ah dalka Sweden iyo guud ahaan Soomaaliyaba ay markaasi u sameeyeen su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa xilligan keenay in fanaanadii caanka ee Xaliimo Gobaad ee fanka caanka ka ahayd ay isaga baxdo waxaana jiri kara dad badan oo doonaya in fanka ay markaasi ka baxaan horey fanaaniin kale ayaa fanka uga baxay qaarkood dib ay ugu soo laabteen qaarkoodna waa ay markaasi ku adkaysteen in fanka guud ahaanba ay macsalaameeyaan si ay uga baxeenna uga maqan hayeeshee Xaliimo Gobaad ayaa hadda dadka isha ku haya waxa ay markaasi sugayaan in fanka ay ku soo laabato ama guud ahaanba ay macsalaamayso haddaba daawade adigu shakhsiyan ma taageersan tahay in fanaanadii caanka ahayd ee Xaliimo Gobaad ay guud ahaanba fanka macsalaamayso السلام عليكم. عاديات بوض سلامتين دمان وولاش الحلم قبات وحاربان دي الشيء. tani waa fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad waxay ka mid tahay fanaaniinta lagu jecel yahay codkooda fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradda Yurub waxa ay maanta si degdeg ah ugu dhawaaqday inay guud ahaan isaga baxday fankii kadib markii ay sheegtay qof walba uu dhimanayo waxa ayna Xaliimo Gobaad si cad u sheegtay in xilligan wixii ka dambeeyo ay isaga hartay fanka inkastoo si rasmi aysan u shaacinin sababihii markaasi keenay hayeeshee waxa xusid mudan in fanaanada caanka ah ee Xaliimo Gobaad muddo saacado ka hor ah markaasi nikaaxeeda uu ka dhacay dalka Sweden isla markaana ay guursatay nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Samow
fanaanada xaliimo gobaad oo heeso badan oo Soomaalida aad u jecel yihiin muuqaalkeedana uu aad u qurux badan yahay goobka ciyaar waalihana soo bandhigta waxa ay sheegtay in ay fankii isaga hartay guud ahaan ee macsalaameysay shacabka Soomaaliyeed ayay ka dalbatay in ay u soo duceeyaan kadib qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Facebook ee xaliimo gobaad sida aad markaasi hadda arkaysaan daawadayaal xaliimo gobaad ayaa waxa markaasi qorsho ahaa in bishan labaad ee Febraayo ay timaado caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaana halkaan ay ku dhigto show kala kacsan hayeeshee ugu dambeyntii markii ay guursatay ay fanka isaga baxday Safaan Halac oo kamid ah fanaaniinta dhowr hees ay isla soo qaadeen dalka Sweden ay ku sugan yihiin ayaa si cad waxa ay markaas ugu hambaliyay guusha ay gaartay maadaama fanka ay isaga hartay waxa uu sheegay ama uu ka dalbaday in markaasi ay u soo duceeyaan asxaabta kale ee fanka wali ku jira si iyaga dhankooda isaga baxaan dad badan ayaa aad u taageeray marka aad akhriso qaybta commentiga kuna taageeray maadaama fanka ay isaga baxday uguna duceeyay in howlo kale ay qabsato halka qaarkood ay ku dhaliilayeen una sheegayeen markii uu guursatay ay fanka sidaasi isaga baxday dad badan ayaa isweydiinaya waxa xilligan ku soo beegay fanaanadii caanka ahayd ee fanka macsalaamayso ee xaliimo gobaad sababta ku kalifi karto inkastoo hadda ay tahay qof nikaaxeeda uu dhalay ama uu dhacay saacado ka hor haddana ah mid ku jirta 7 ama bishii malabka nolosha ay doonaysana inay ku raaxaysato dadka ayaa sidoo kale isweydiinaya fanaanadan maadaama ay jiraan fanaaniin kale oo caan ah oo fanka ka baxay haddana mar kale dib ugu soo laabtay inay dib ugu soo laaban karto hal qaarkood ay sheegayaan in xaliimo gobaad ay tahay qof go'aan leh fankana aysan ku soo laaban doonin heesaha lagu xasuusto caanka ay ku tahay fanaanada waxaa ka mid ah mana ihi qof caataha ku mana cataabina heestaas oo u muuqata inay tahay mid markaasi shaqsi ama markaasi lagu dhaga hadlayo maadaama jaceyl uu kala dhaxeeyay iyo heeso kale oo caan ah oo abwaaniin markaasi caanka ah dalka Sweden iyo guud ahaan Soomaaliyaba ay markaasi u sameeyeen su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa xilligan keenay in fanaanadii caanka ee xaliimo gobaad ee fanka caanka ka ahayd ay isaga baxdo waxaana jiri kara dad badan oo doonaya in fanka ay markaasi ka baxaan horey fanaaniin kale ayaa fanka uga baxay qaarkood dib ayay ugu soo laabteen qaarkoodna waa ay markaasi ku adkaysteen in fanka guud ahaanba ay macsalaameeyaan si ay uga baxeenna uga maqan sheekh xaliimo gobaad ayaa hadda dadka isha ku haya waxa ay markaasi sugayaan in fanka ay ku soo laabato ama guud ahaanba ay macsalaamayso haddaba daawade adigu shakhsiyan ma taageersan tahay in fanaanadii caanka ahayd ee xaliimo gobaad ee